mas-uuliyiinta gobolka saaxil ayaa ka hadlay howlo shaqo oo ka socda warshada korontada ee magaalada Berbera taasi oo sababtay inay qaybo ka mid ah magaalada uu dabku ka maqnaado ama bilaalayda ay ahaadaan mas-uuliyiinta oo tan iyo saaka taagna goob laga raraayay mishiinada waaweyn ee dabka dhaliya ayaa waxay sheegeen in ay mishiinadana ay xidheen dariiqa ay xooluhu u maraan dekada weyn ee Berbera marka ay ka dhoofayaan taasina ay caqabadu ay ku keentay xoolaha badan ee ka dhoofaya dekada weyn ee Berbera maadaama xoolihii la furay waxay sheegeen in ay maamul ahaan ay ku go'aansadeen in mishiinadaasi loo raro goobta ay ku taalo warshada korontada ama balaydhka ee magaalada Berbera xogayaha fulinta dawladda hoose Cabdikariim Aadan Caddo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ku hawlan yihiin sidii leerkaasi loogu shidi lahaa xaafadaha kala duwan ee Berbera maadaama lagu jiro bilihii ugu kululaa ee xagaaga in maxay tahay aan joogsanin ama xooluhu inaga xanimin magaalada aan leeyahay waayeen waxa weeyaan waxa maanta maamulkii gobolka iyo degmada iyo maamulkii warshada leerku ay maxay tahay gacanta ku hayaan in la raro saddex mishiin waaweyn oo kala bar magaalada maartay shidayay waxa meel fiican oo inoo maraysa runtii waxaan rajaynaynaa insha Allah ilaa maanta gelinka dambe inay leerku inoo baxo marka ay dadweynaha reer Berbera waxaan rajaynaynaa dul qaataan inaguna waa dhameynaa insha Allah gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna bulshada u soo jeediyay inay u sabnaan saacadaha uu ka maqan yahay leerku maxaan ku raacdaa adeeg reer Berbera abaal weyn u hayaan sababta ugu hayaan waxa weeye waxay helaan dab 4 saacadooda waxay haystaan qiimo dhimis aan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliba aanay haysanin oo ah qiimaha ugu hooseeya oo 0.39 iyadoo bil barakeysan ku jirno oo ay xagaa tahay goobtan oo stationka ugu weyn ah waxa looga raray duruufta xoolaheena maadaama xoolaha furay oo xooluhu iyo guuxu aan isku galeyn awgeed baa looga raray marka iyadoo dalka iyo qaranka mudnaanta koobaad ay yihiin xoolaha nool ay yihiin waxa leena dadka reer Berbera ha adkaystaan rabadaanta waliba ku samraan ajar badan way helayaan waxa laga yaabaa in gelin hore iyo gelinka dambe in leer laano waxaan ku dadaalaynaa insha Allah fiidka uu leerkaas soo dhaco runtii waa garan karaysaa power station intaas oo sano meesha yaalay oo shaqeynayay raristiisu inaanay sahlaneyn marka aad baan ugu mahadcelinayaa hawlwadeenadan oo shaqo adag haya runtii shaqo adag haya oo saaka saad wax bilaabay oo ilaa imkan arkana mishiinada la rarayo iyo qalabka la rarayo oo waliba isfahansiintiisa iyo soo aad u adag tahay marka waxaan leenahay waxa tii madaaliyaal wada dadka reer Berbera waxaan leenahay adkaysto ku samra gudoomiyaha gobolka saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa isaguna sheegay in saacadaha soo socda ay magaaladu bilaa dab ahaan doonto balse loo baahan yahay in loo dulqaato maadaama gacanta lagu hayo rakibaadii mishiinada waaweyn ee laga soo qaaday goobta ay xooluhu maraan ee dekada weyn ee Berbera shacbiga reer Berbera ku wargelinaynaa in saacadaha oo leerku ka maqnaanayo oo maanta u badan gelinka hore ilaa galabnimada waxa weeye warshada halka laga qaadayo oo ah duruufida ay keentay oo ah meeshii ay xooluhu marayeen xalay 3400 ku dhawaad geel ayaa dhoofay halka markay marayeen dhibaato badan ay kala kulmeen maxaan ku idhaahdaa mishiinadii xinkoodii xoolihiina hadda inoo furmeen oo waxa la filayaa xoolo aad u badan inay bishan hadda ay berita kowda ay inoo dhoofaan waa inaynu markaa weelkeedii sii samaysanaa waa inaynu maalin saacadaha ay warshadu xooga culayska barasharkan ku saarnay ee aanu ku nidhi mashiinkana ku qaada isla markaana markiiba rakibo dadkiina u shida saacadaha leedku maqan yahay inaynu u samiro ayaa inagana reer Berbera aanu ku wargelinaa kana codsanaynaa waayo waa danteeni weey waa bil rabadaan way noognahay culays iyo haraad baynay leedahay waan ognahay dad waayeelihii inay jiraan waan ognahay ganacsi fara badan inuu ku xidhan yahay laakiin waxaynu maxaan ku duruufteennida saamixi weyday dabla'aanta saaka ayaa ku soo beegantay bilihii ugu kululaa ee magaalada Berbera ama xagaaga iyo sidoo kale bisha barakeysan ee rabadaan si kastaba ahaatee mas'uuliyiinta gobolka saaxil iyo sidoo kale maamulka warshada Berbera ayaa si adag ugu hawlan dhameystirka ciladaasi ama farsamadaasi lagu wado mishiinada waaweyn ee dabka dhaliya ee la rakibayo waxaana laga dhursugayaa saacadaha soo socda ay si rasmi ah leerka ugu shidaan xaafadaha magaalada Berbera Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera